kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba halkani waa telefishinka Universal Studio-hiisa magaalada London kusoo dhawaada barnaamijkii dood wadaag oo aad ka daawataan telefishinka Universal habeenkan oo kale sida aanu ognahay dalka Soomaaliya waxa ka taagan muran siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyadoo aanu ognahay shirkii lagu qabtay magaalada Kampala ee wadanka Uganda inuu ka soo baxay heshiis ay gaareen madaxda ugu sareysa dawladda sidaan la socono murankii siyaasadeed ee hareeyay dawladda waxa aanu ognahay murankaasi inuu ku saleysnaa waqtiga oo dhamaaday oo la doonayay in doorashooyinkii la qabto iyadoo qayb kamid ah dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ay sheegaysa inaan xilligan ku habboonayn murankaas waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala ee wadanka Uganda iyadoo lagu gaaray heshiis 10 qodob ka kooban oo ku jiro qodob muran siyaasadeed oo xoog badan dhaliyay markii heshiiskaasi lagu soo daray 30 maalmood gudahood ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xalka iska casilo taasoo dad badan oo Soomaaliya ay banaanbaxyo ka sameeyeen gudaha wadanka Soomaaliya iyo dalka dibadiisa waxaanu ognahay shirkaas Kampala ka dhacay qodobada ka soo baxay markii hore madaxda dawladda ku meel gaarka oo ra'iisul wasaaruhu ku jiro in ay soo aqbaleen laguna ballansanaa in ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka uu iscasilo yeeshee magaalada Muqdisho markii uu ka degay kacdoonkii shacbiga ee 9kii bisha June ayaa waxa uu dhaliyay ra'iisul wasaaraha fikrad ahaan inuu wax iska bedelay barnaamijka iyaga dood wadaagay caawa waxaanu ku eegaynaa heshiiska Kampala lagu gaaray maxaa faa'iido u leeyahay ummadda Soomaaliyeed maxaa qasaare ah oo uu leeyahay barnaamijka dooda caawa waxa igala qayb galaya siyaasiyiin caanka ah dalka Soomaaliya waxaanu ku eegi doonaa bal qasaaraha iyo faa'iidada uu leeyahay heshiiskaasi hase yeeshee aragtiyo kala duwan oo madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya shirar ay qabteen ay waxay ku cadeeyeen aragtidooda taasoo dad badan oo Soomaaliya fikirkaas ay ku kala qaybsameen waxaan ku horeynayaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho oo kaga hadlayo heshiiskaas waxaa runtii soo baxay caqabad ka yimid sida ay wada shaqeynayeen 12 bilood oo soo socota baarlamaanka iyo xukuumadda waxaana cabasho soo gudbiyay baarlamaanka oo soo jeediyay in aysan la shaqeyn karin xukuumadda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha aysan suurtagal ahayn in la wada shaqeeyo loona baahan yahay ra'iisul wasaaraha la bedelo annaguna waxaan ku doornay in loo baahan yahay in la iscafiyo la issaamaxo xilliga ku meel gaarkaana loo wadameeyo caqabaadkii markii ay bateen waxaan u yeernay ra'iisul wasaaraha waxaan u sheegnay xaaladdan iyo haddii looga tago meeshan khilaafka kala kala iyo dawladda dhibaatada gaari karta ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku qancay inuu mataqaana istiqaaloodo sidoo sii wado hawshii lagu heshiiyey mudaharaadka waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan waxaa ka mid ahaa qaraxii dekada lagu sameeyey waxaa ka mid ahaa qaraxii lagu sameeyey wasiirka sababta waxaa ka faa'iidaysanayay al-shabaab iyo al-qaacida marnaba inaan qaldanna marnaba fawdo dawladaan ku dhiminay waana ku dhisi weyn waxaan ogolnahay dadku ra'yigooda inay cabiraan laakiin fawdo lama ogola waxaana khasab ah dhiiggii daatay xoolihii baxay waqtigii la bixiyey natiijadooda in la waajiyo nin gurigiisa fadhiyey oo lacag ku qaadanaya uma ogolaanayn inuu shacabka soo abaabulo oo dhibaateeyo oo dawladda dumiyo ma ogolaanayn haddii dad badan ay u haystaan haddii la buuqo oo mudaaharaad la sameeyo inaan kala cararayn ma kala cararayn waxaan la dirinay shabaab oo iyaga awood badan waxaan la dirinay alqaacida ka awood badan maanta nuguulaan ku taagan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho oo kaga hadlayay heshiiskii Kampala iyo qodobadii ka soo baxay maalin kadib ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho oo isna kaga hadlayay heshiiskaas iyo aragtidiisa ku saabsan heshiiskaasi waxa uu ahaa waxana uu Farmaajo hadalkiisa ku bilaabay marxaladda magaalada Muqdisho iyo dareenka dadweynaha kulligood waa bedelnaa dadka shucuurtooda iyo rabitaankooda wuxuu ahaa mid aan la xisaabi karin ama la qiyaasi karin marka waxaa ii soo baxday
anuu dhegaysanaya shacabka ummadda Soomaaliyeed dareenkooda anuu dhegaysanaya maxaan ku yiraahdaa golaha wasiirada oo unanimously si guud ugu codeeyay in heshiiskii Kampala aan u gudbino baarlamaanka sideedaba mar haddii heshiis la soo galo si kastaba loo soo galo waxa lagu khasbaya sida axdiga kumeelgaarka uu noo sheegayo ama dastuurkii lixdankii in la marsiiyo golaha baarlamaanka oo iyagu ay ka doodaan ay ratification ku sameeyeen taas waxay ahayd mas-uuliyad golaha wasiiradu ay qaateen in heshiiskaasi loo gudbiyo golaha baarlamaanka waxaa ku jirtay heshiiskaas 10 qaybood ah ama 10 xubnood ah ama 10 points-ka ah iscasilaadda golaha iscasilaadda ra-iisul wasaaraha xaqiiqdii markaan arkay dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo midnimada ay muujiyeen iyo qaranimada ay tuseen caalamka waxaa ii muuqatay inaan dhegeysto shacabka inaan yidhaahdo waa inaan raaco procedurkii loo baahnaa oo ahaa in xukuumadda aan anigu madaxda ka ahay ay ka qaadi karto kalsoonida ama ay kalsooni siin karto baarlamaanka marka anoo eegay intaasoo dhan waxaan go-aan ku qaatay in aan u dayno kalsoonida ka qaadista ama siinta baarlamaanka laakiin anigu aan eego rabitaanka shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay iyagaa u hayaa meesha iyagaa iskale maxaan ku raacdaa hadalka ugu dambeeya go-aanka ugu dambeeya shacabka Soomaaliyeed yaa iskale iyo golaha baarlamaanka rabitaanka shakhsiga waa meeshiisa booskan ama boosas walbaba oo loo hayo ummadda Soomaaliyeed waa temporary qof isku dhigi kara ma laha oo jeclaysan kara ma jiro waxaan u haynaa ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan ku haynaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo golaha baarlamaanka hadday yidhaahdaan waa kaala noqonin kalsoonida waxaa khasab igu ah si sharaf leh inaan isu casiyo laakiin inta ka horeysa inaan eego rabitaanka ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo shucuurtay ka muujiyeen iyo barnaamijyada ka muujiyeen iyo baarlamaanka saas darteed waa sii shaqeynaya inta baarlamaanka ka fariisanaya iyo go-aankaas ay qaadanaya aad iyo aad ayuu mahadsan kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho oo kaga hadlayo aragtidiisa ku saabsan heshiiska Kampala waa mar kale iyo barnaamijka doodwadaag barnaamijka caawa waxa igala qayb galaya oo dooda caawa ila fadhiya Axmed Sheekh Mukhtaar oo hore u ahaan jiray gudoomiye ku xigeenkii shirkii dib u heshiisiinta ee magaalada Muqdisho lagu qabtay isla markaana hore u ahaan jiray wasiir ka tirsan dawladii Cabdiqaasim waxa kale oo barnaamijka igala qayb galaya oo isna ila fadhiya Axmed Salaad Kulmiye oo ah nin siyaasi ah oo in badan siyaasadda wadanka Soomaaliya ku soo guda jiray aadna xoogaal waa xaaladda wadanka Soomaaliya sidaanu ognahay waxaanu la soconaa murankii siyaasadeed ee Soomaaliya ka jiray oo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed aad u haystaan inuu yahay muran siyaasadeed oo aad u raagay oo markii horena sidaanu hore u soo sheegnay ka dhashay khilaafaad u dhaxeeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha xagga doorashada ahaa hadda sida aad arkaysaan labada shir jaraa'id ay kala qabteen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu ku saleysan yahay khilaaf hor leh murankii dhanka kale inuu isku rogay barnaamijya jira dadkii Soomaaliyeed ee dunida joogay waxa ka banaanbaxayaan waxay muujinayaan aragtidooda ku saabsan heshiiska Kampala waxa soo baxaya aragtiyo cusub oo ka duwan qaabkii hore siyaasadda Soomaaliya ay ahayd oo ku saleysan hadda aad moodo dawladda qaybaheeda kala duwan gudaha Soomaaliya in khilaafkan uu hareeyay waa maxay aragtidiina ku saabsan khilaafaadkan aad arkaysaan ee siyaasiyiinta Soomaalida u dhaxeeya sidoo arkaysaan waxaan ku horeynayaa Axmed Sheekh Mukhtaar hay Axmed bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan salaamo dadweynaha daawanaya iyo dadka martida ku ah halkaan nala jooga marka ugu horeysa waxaan ka codsanayaa cawil in aan ka hormariyo araryir
waxaan jeclaan lahaa dooda inay ahaato wax badan aan dooda ka dhageystay tviyada dooda inay ahaato dood wax dhista ayna noqon wax dadka burburisa oo abuurta colaad hor leh iyo catifad wadaninimo oo dhinac kale loo arkaa mise shakhsi jeclaysi mise nacbaysi dooda inay ka baxsanaato ay ahaato mid aan ka baaraadigno qodobkaad sheegtoo ah maanta xaaladda soomaaliya meel aada khataray ku sugan tahay go-aanadaa ka soo baxay Kampala in si dhaba loo ogaado loo fiiriyo oo lagu hoos dhaadhaco oo aan si analysis fiican oo cilmiyeysan aan isugu sheegno aad u mahadsantahay adigu noo bilaab marka ugu horeysa horta waxaan jeclahay inaan ka bilaabo shirka Kampala muxuu ahaa markiisii hore maxaa loo tegay ma Shariifaa dalbaday ma Museveni dalbaday horta marka ugu horeysa aan fahanno oo ummadda aan fahansiino wuxuu ahaa shirkaasi wuxuu ahaa qoladan loo yaqaano Somali Contact Group groupkaas oo marba meel ku shira groupkaas ayaa shirka watay shirkaas oo markiisii hore ahaa shir lagu kala warqaato arrimaha Soomaaliya ku soo kordha amba ka hoos markii shirka la yimid talada iyo ma ahayn in uu tago gudoomiyaha baarlamaanka mise prime ministerka ma ahayn madaxweynihii martida loo ahaa Museveni oo maanta aan ognahay Soomaaliya meesha uu kaga jiro rulka uu kaga jiro ayaa khudbadiisii wuxuu ku soo daray uu ku codsaday in dawladda loo kordhiyo 1 sano arrintii way la cuslaatay nimankii wuxuu sii raaciyay haddaan loo kordhin inuu ciidamadiisa kala baxayo arrintaasi waxay ahayd arrin laga naxo waayo annagoo iska doodnaa ani hadda muqdisho sanadaan moogahay iyo xoogaa dhibka dadka maanta muqdisho ku nool haysta iyo dadka aan la yaabo mararka qaarkood ka hadla arrimaha Soomaaliya aad isugu warlaayeen war waxaan dhameen 1 kilomitir ayuu hoobiyaha ku jiraa oo qarax uu ku jiraa magarad marka dhibaatada soo jirta hadduu ciidamadiisa la baxo annagoon ciidamadeennii aan weli xoogaysan oo aan lugahooda ku istaagin macnaheedu waxa waa qoladaa ka soo horjeeda dawladda ha qabsato taa wax laga naxay ahay waxaa kaloo la yaab leh markuu sidaa yiri madaxweynihii Burundi oo asagana ciidamo ka joogaan ayaa sidii oo kale soo jeediyay taladii waxay noqotay inay dib ugu noqdaan contact group way ka tagtay UN in la isku noqdo doodii ay balaarato oo loo baahdo in loo yeero gudoomiyihii baarlamaanka in la xalliyo arrintooda waan la soconaa indhahayaan istirin mahigayaan dambi saarin UN yana dambi saarin dambiga Soomaaliya leh ummadda leh madaxdeeda leh markii 6 bilood laga sugaayay khilaafkiina xalliya oo golaha ammaanka soo hadlay oo igad ay hadashay oo African Union ay hadleen oo dawladihii dariska ay hadleen in khilaafkii la dhameeyo ay dhowr jeer isu tageen oo waxba ka soo bixi waa oo la isku mari waa ayaa waxa dhacday in Museveni uu shirka ka sheegay ay noqoto bal wixii waqtigeedina August ku eegi intaan waqtiga dhamaan hal daba qabto waa la isu tagay in bal xal anigu waxaan la yaabaa heshiis ayaa la dhahaa heshiis ma dhicin xal xisbi isla socday dhaxdiisa isku khilaafay in la heshiisiyo oo dad u kacay ayaa horta meesha halkaas loo raadiyo dawladii inayna burburin oo lagu kala tagin August oo wax la isu soo qabto ayaa la raadiyay hal la raadiyo markii labadii nin oo ugu weynaa prime ministerka Muuse Aadin waayo sheekada hadda dhacday ma ahayn prime ministerka wuxuu ku lamaanaa oo la siyaasad ahaa madaxweynaha dad isku mabday ahaayeen dad in loo kordhiyo wada rabay ahaayeen baarlamaanka iyo gudoomiyahoodana dhinacu ahaa marka madaxweynihii haduuba joogo gudoomiyaha loo yeeray waa tii ay wada fariisteen labadooda meel isla galay waa ismari waayeen waa isku noqdeen ilaa markii dambe uu yimaado halkan in prime ministerka uu meesha ka baxo say ku timaadaba ku timaada anaga war uma hayne doodoodii dhaxdooda ahaa ayadoo la wada joogo oo madaxdii ay joogaan ayaan waxaan moodayaa aniga hero ii ahaa farmaajo markii aan hadalka maqlay waayo inuu u huro naftiisa badbaadada dawladdaas iyo ummadaas anaa meesha ka baxaya inuu yiri ayaan moodayay oo hero ii ahaa oo maanta wuxuu noqon lahaa sumcadda uu samaystay iyo magaca uu sameeyay nin dhalinyarna waa yahay nin mustaqbal xoog leh ku yeelan karay mujtamaca adduunka iyo mujtamaca Soomaalida
sheekadii mayna dhicin muqdisho markii la yimid banaanbaxyadii iyo wixii iyo ay dhaceen ayaa haddeer waxaan maqlaynaa in wixii laga noqday anigu waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo sidaa haddaan ku soconno maxaa balaan b ah maxaad malayn karaysaan waddankaas waxa ka dhici kara haddii agosta saa lagu waa su-aal meesha taalla xigashada Axmed iyo aragtida ku saabsan qaabka heshiiska Kampala oo u fasiray wax miyaa ku daraysaa masaartada wax ka doona qabta Axmed بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين دمانتين كقيب قلياشي دوينا dhageysanaya anigu waxaan qabaa sidaas si aan ahayn waxaan qabaa heshiiskaasi inuu ahaa heshiis isku diray madaxdii Soomaalida heshiis meel ka dhac ku ah sovereignty iyo qarannimada Soomaaliya heshiis xeer jajaba oo aan raacaynin xeerkii xataa dawladda ku meel gaarka u degsana aan raacayn inta marka la isu wada geeyo wax ku oola oo aan wax fidna kordhinayo u muuqdaayo ugu muuqdo wax wanaag kordhinaya totally waxaan sidaa u leeyahay hadii la isqabto maamuladu way isqaban karaan wax la jilayo oo meesha yaala oo lagu shaqeynaya waxa weeye habkii dimuqraatiga ah habku wuxuu leeyahay hierarchy iyo qaabab la raaco qaybta baarlamaanka xeer dejin ayay xaq u leeyihiin wixii xeer inay dejiyaan diidaan ama yeelaan wixii la soo jeeday oo la ansixay wax executive-ka ka galay oo u qabsadeen oo yiraahdeen hebel lama shaqeyn karo hadda waxaan maqlayaa madaxweynuhu wuxuu leeyahay baarlamankiiba ra'iisul baarlamaanka waxay leeyihiin lama shaqeyn karno prime ministerka وهذا شيء فصول wax jira maaha marka xeerka ay ku shaqeynayaan la raaco baarlamaanka waxa laga rabaa hawshiisa inuu qabsado kana hawshiisa arrintaas xadgudub waxay ku tahay xeerkii iyagu ay ku shaqeynayeen iska dhaaf wax kale waxay xadgudub ku tahay nidaamka la raacayo dimuqraatiga oo kala sheegaya executive powerka legislative-ka muxuu ahaa xeer dejinta kulli midba hawl meel ku shaqeeyo leeyahay dawladdu sideedana qabiyo oo ahayo qaybtii garsoorka lama sameeyo oo haddii sidan la isu qabsado kala saari lahayd garsoorka xeerka lagu noqdo sheegi lahayd dhihi lahaa halkan iyo halkan ciladu ka jirta inta marka laga tago maxay kala sameeyeen waxay sameeyeen dhexdhexaadin marka la sameynayo waxa weeye darfiis hay in qaarna arintoodii eegto qaarna godbatahay isku dirid bay keenaysaa xalin keeni mayso haddii ay xeer afrikaan qaadeen oo ay xeerjisa ku shaqeeyeen oo ay nidaamkii dimuqraatiga iska daayeen oo xeerkii Soomaaliya iska daayeen oo waxaas oo dhan faraha kala bixeen in rag baa ishay afartaan in wax u qaybin ama shantaan nin prime ministerka inay asaga gaar far ugu taagan gardarro way ziyaada ku ah why wax reason lama keenin meesha ku filan reason ku filan ma aha ra'iisul baarlamaanka la shaqeeyo ra'iisul baarlamaanka executive-ka shaqo uu ku leeyahay oo uu ku yiraahdo kula shaqeeyma oo kula shaqeeyna meesha ma taal xeer raacba meesha yaal dhahaya waxaasaan xeerkii ansixinay ama waa diidnay wax kale waa isjiid iyo canaatan waxay tagaysaa arrin aan ahayn siyaasad u cuntanta bulshadeena iyo qarannimadeena looga meel looga dhacay sovereignty-geena midda labaad qodobkan sideedaad ee dhahaya waxaa la sameynayaa political bureau oo ay wixii qayliyaabo u yimaadaan oo iyagu saxa check balance-gii sameeya sovereignty-geena waxaad gudub ku yahay shuruucda meesha tii lagu shaqeynayay dawlad baa laga hadlayaa haddana waxa laga hadlayaa golaha caalamiga oo coordinate gareeyo dawladii wuxuu kala tilmaamo ayay kala dhiciya macnaheedu waxa weeye iyaga mustiyahoodii uu hoos dhigay wuxuu ka soo qaaday dad waxba jiri karin waxay xadgudub ku tahay qabkeenii iyo qarannimadeenii iyo raggii wax maamulayo dhan bay xadgudub ku tahay sida haddii aqliyadu marka tahay caalamka ku shaqeeyay aqliyad heshiisiin laga rabay ma aha oo aqliyad wax isku diraysa oo aqliyad Axmed aad ma haysatahay Axmed Sheekh Muxtaar waxa tahay nin siyaasi oo wasiir soo noqday dabcan xagga dib u heshiisiintana muddo badan ka soo shaqeynayay marka aanu fiirino xaaladda wadanka Soomaaliya hadalkaaga waxa ku jiray Soomaalida madaxdeeda ayaa dhibaatada wadanka Soomaaliya tahay international community iyo dawladaha caawinaya ma markaanu dib ugu noqono qaladaad ka dhacaya Soomaalida kaliya la siin karaya Soomaalida kaliya lama siin karo marna waa la siin karaa oo waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa xeer ayaa jiray oo lagu magac daray axdi qarameedka waxaad moodaa sideedaba wadan wuxuu burburaa oo dawladeen horena ay ku burburtay dastuurka hadii la raaci waa dastuur haduu mar burburo waxa burbur ku imaanaya dhaqaalaha waxa burbur ku imaanaya siyaasadda waxa burbur ku imaanaya dhismaha dawladeed oo dhan hadii laga leexdo hadda
muddo waxaad moodaa iyo inta ka horreysaba axdi qarameedka inuu yahay mid meel iska yaalla markii loo baahda lasoo qaato oo nin walba uu ku soo dhigo oo maalinta ka horreysay uu diidanaa haddana maalinta ku xigta uu leeyahay qodobkaas asaasle haddii la raaci lahaa axdi qarameedka oo madaxda dawladda qof walba uu dhowri lahaa oo siduu yahay loo raaci lahaa aan xerjajabka laga deen lahaa horta dhibaatooyin badan ma imaadeen international community waxaan qabaa aniga waa jirtaa faragelin laakiin faragelintaasi waxay u taallaa nimanka madaxda ah ilaa heerka ay la gaari karaan waayo hadday ayaga ay isku duuban yihiin faragelin ma imaan lahayn laakiin mar kasta waxaa dhacda laga bilaabo dawladdii carte waxaan goobjoog usoo ahayd in mar walba prime ministerka iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka wixii ay saas isula wareegaan marba laba israacdo mid meel la mariyo marba haddana bishii dambe ay meel ka baxdo aniga waxaan ku sababeeyaa taa haddaan fiiriyey marka ugu horreysa madaxweynaha iyo ninkuu prime ministerka ka dhiganayo inaanu jirinba fikir midaysan amba brogram siyaasadeed oo uu aaminsan yahay oo in la sameeyo ay ku wada heshiiyaan oo mabda ah oo ideolojiye leh inay meesha jirinba uu prime ministerka marka horeba lagu soo qabto amba reer hibil amba nin loo keeno uusa aqoonba iska daayay siyaasaddu uu aaminsan yahay qofka taa waxay keentaa muddo yar gudahood in labadii qof ay iska hor yimaadaan ilan si fiican ba mabaadi ahaan ismayna aqoon siyaasadaha la kala aaminsan yahay laisma ogeyn ay markiiba soo banaan baxdo oo ay dhibta ka dhacdo taana ilaa maanta in la haysataa waana looga faa'iidaystaayo nin walba wixii loo sheego ayuu qaataa oo ka kale uu kula tagaa axmed sidaanu ognahay madaxweynuhu hadda hadalkiisa waxaa ku jiray dadweynaha banaanbaxaya dad lacag la siiyey waa arrimaha sameynaya lacagta ay ku bixinayaan banaanbaxyada iyo arrimaha kala duwani waa inay ku bixiyaan horumarka waddanka iyo kol dhaweyd markii madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu tageen banaanbaxyaa ka bilowday gudaha waddanka soomaaliya ilaa iyo berigii maxamed siyaad barre waxaad ka mid ahay dadkii soomaalida ah ee sida weyn uga qaybgeli jiray amaba abaabuli jiray banaanbaxyada ka dhaca shacbiga soomaalida ayahooda iyo waddankooda iyo arrimahooda loo sameeyo markaa fiiriso 21 sano oo military ah oo dadku ay cabursanaayeen 21 sano ka dambeeyso dagaalo sokeeyay iyo dhibaato xoog badan dalku ka jiray ma isleedahay 9kan June waa banaanbax cusub oo dadku marka ugu horeysay ay mayaleeyeen wax ha waan leeyahay waanan sababaynayaa tii hore horta waxaan raacinayaa xadgudubka ka dhex muuqanaya heshiiskan oo dhani waxyaalaha ugu waaweyn waxa weeye waxa la maslaxayay lama madaxweyne ma ahayn waxa la maslaxayay madaxweyne iyo muxuu ahaa afhayeen baarlamaan ma ahayn laba xisbi mucaarad oo la maslaxayay ma ahayn xisbiyo muxuu ahaa kulada iska soo horjeedo oo ah midba haykalkeedii leeyahay dawlad hal qaab u samaysan oo dimuqraatiga la maslaxay gudaheed marka loo eego qaabka ay u dhaqan geliyeen arinta ay u heshiiska u sameeyeen wuxuu leeyahay saameyn xun oo xadgudub ku ah qab dhaqanka Soomaalida mana aha wax oo muxuu ahaa maslaxad keenaya saasan ka arkaa midaan kale dadweynaha tan dadweynaha anu waxaan isleeyahay dadweynuhu waxay soo mareen xilli dheer oo 30 sano dagaal ku socday gaar ahaan dadka deegaanka Koonfureed jooga khaasatan kuwa Muqdisho jooga dhiigooda ayaa lagu tababaray in dooraha dhiigooda ay ku tababaranayeen waaciin bay waxay u yihiin qaladaadka ka dhacaya dadka wax maamulaya iyo dhibaatada taagan noocay tahay waa naga xanuun badan yihiin in badan waxayna dabada jooyay wax la mid ah waxa markay jirta bulsho waliba bisaylka adduunka waa la qiyaasaa qiyaasta koowaad waxa la yiraahdaa talent stage joogta marxaladii u sheegidoo ninka madaxda intuu wuxuu sheegay ay iska dareerayeen oo marxaba dhahayeen marxaladaas waa soo marnay xilligii warloodyaalkay ahayd abwaan gabiyay oo la dhihi jiray ninka la yiraahdo gaariye ayaa tixyiri markuu arkay warloodyadii sida loo wada sabcinayo iyo tix ku dhuftay war gabigiisa ku jiray eray aan ka xusisto dhahaya qolo waliba awr baa ku hordoodinayo laga yiri dadtiin baa duubka loogu xiray oo la yiraahdo kama dege wax dardaari kara male haday ciidan qaatana dirir bay ka xigayaan dadkuna waa hangoolkii markay ciidan leedahay dal maruu la tabi jiray dadkii wuxuu ku qiimeeyay inay hangool yihiin oo qalab la adeegsado baadiyaas oo wax lagu soo jiyo jidaabiye wax kale galayaan aan la arag
marxaladda iyada oo bisaylka ninkaas ku qiyaasay dadku in hangool loo isticmaalayo waa ka soo gudbeen dadku waayo arag bay ka noqdeen dadka waxaan ka soo qaadaynaa inay marayaan marxaladdii labaad oo ah selling stage in siyaasadda laga gato loo sheego waxa la qabanayaa waxay yihiin okay waxay joogaan hadda heer ay ku leeyihiin anigu ma doonayo inaad khudbad kale ii akhriso waxaan doonayaa inaan arko dawlad facaala waxa aad qabanayso wixii mugdi gale ee la sheegay ee adiga side propaganda mucaaradku kaa sheegeen inaad caddayso aniga inaad aqoonsato positionkayga shacabka bisaylkeedu halkaas u maraya mudaharaadkana waxaa keenay oonkaa keenay inay xogogaal u noqdaan waxa dhacaya waa in hadda ka bacdina waa ka qaybgalayaal waxay noqonayaan saas oo rasmi ah aad baa umahadsan tahay axmed sheekh mukhtaar aragtida kala duwan ee dadka soomaalida dabcan waa kala aragti duwan yihiin qaabka xaaladda siyaasadeed ee waddanka soomaaliya socda dadkii way koreen sida hadda axmed ba sheegayo oo markii ugu horreysay 42 sannadood kadib dadku ay yiraahdaan waxaan ma aqbalayno markaa fiiriso xagga siyaasadana raadeedkii 21 sano ee ugu dambeysay waxyaabo kala duwan baa soo baxay waxaa jira in hadda dadka Soomaalida ah ay barteen hadduu qofka wax qaban waayo inuu inta meel fagaara soo istaago iscasilo example oo kale markay dhacaan crisis aad u xun xaalado xun oo laga gudbi waayo tusaale ahaan Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii ka horeeyay Sheekh Shariif markuu wadi waayay meel fagaara soo istaagay uu iscasilay ra'iisul wasaarihii Cali Maxamed Geedi sidaas oo kale waa iska tagay xoogaal aad u tahay intaanay dawladdii adiga aad wasiirka ka ahayd oo Cabdiqaasin siday u socotay oo xal loo waayay markii dambe ayada kaligeed un baa burburtay si dawladdaanay u baabi'inin mushkilada jirtana loo xaliyo miyaanay kula muuqanin haddii siyaasiyiinta Soomaalida ay ku fayl garoobaan waxa ay qabanayeen inay door bidaan si Soomaalida loo badbaadiyeen iscasilaan hay Axmed horta marka hore aad ay u fiicnaan lahayd in garashadaas la isla wada garto oo madaxda Soomaalida nin ku dhiirada qaladaan galay waana ka tagaynaa meesha way fiicnaan lahayd laakiin situationka lagu jira hadda waqtiga lagu jiro oo waqti aan weli dawladdiina kobcin oo weli dagaalo xooggan ay jiraan oo meel u dhow waxaan dhamayn 2 kilomitir cadowga u fadhiyo waa adag tahay in uu cidla kaga tago qofka waa jirtaa Cabdullaahi Yuusuf oo ku dhiiraday waa ku gees waa uu sameeyay laakiin maalintii uu Baydhabo ka baxay ayaa lagu kala cararay Baydhabo oo taa macnaheedu waxay unity dawladnimo ayaa meesha laga waayay oo dhibtaasi ayaa dhacday marka waa qabaa sharafaynu ahaan lahayd qofka markuu arko inay ku fashilmeen wixii misal isjiidkii u batay in la yiraahdo waa ka tagay meesha wali waxaan jeclaan lahaa oo maanta haddii aan tala ku siin lahaa situationka sidaas ninka iska casila inuu sumcad yeelan lahaa ayaan aaminsan aad baa umahadsantahay Axmed aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee nagala qayb galaya haye marka hore magacaaga kadibna aragti iyo su'aal hadii aad qabto haye magacay waxa weeye Professor Ismaaciil Xasan Faarax haye Ismaaciil aniga siyaasad ahaan in waxaan ahay siyaasad ka soo qayb galay guddiga ugu horeeyay xamar taga 92 ayaan ka mid ahaa si dhibaatada maanta jirta halluga laakiin markaan arkay runtii inay meesha ka muuqan anagoo waxba galabsanin ayaa isaga soo tagtay maalin cad markaan soo bixin waxaan aragnay fuustooyin oo meesha Zoobe iska gedinaya fuustooyin waxa laga baxshay furka laga baxshay benziinkii ayaa daadanay markii meesha u soo dhawaanay waa la huriyay si waxaan ku fakarayaa Allah haye markaas ayaa ugu dawlad hadda siyaasadda waxa weeye waxaan ka hadlayaa waxa weeye on shirar badan baa la qabtay Soomaaliya labada shir ugu dambeeyay waxay ahayn shirkii Nairobi iyo shirka Kampala labadaas inaan ka hadalno ayaa fiican shirka Nairobi aniga waxaan qabaa labadii xaq daro ku heshiisa xaq ku dagaalaan maxay ula jeedaa waxaan ula jeedaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shir Soomaali loo yeeray oo goboladii Soomaali ay ka soo qayb galeen ahlu diinkii ka soo qayb galeen ninkaas ka soo qayb galay oo laga hadlayo danta guud laga hadlayo ayay si bareer ah
ayay u diideen shirki wax baa ka soo baxay wixii noqotaba shirkii ugu dambeeyey haddana waa shirkii ugu dambeeyey shirkii Kampala labadii shalay xaqdarada ku heshiisay oo inay tegin shirka ku heshiisay yaa haddana ayagii isqabtay meeshaan waxaan leeyahay oo fikradda aan qabo waxa weeye dadkan waxaa loo doortay in dhibaatada Soomaaliyeed jirta inay wax ka daaweeyaan laakiin waxaan u arkayaa inay yihiin daawo bukotay haddii daawada bukoto waxba lagu daaweyn karo xallinta runta waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed u ogolaadaan ciddii xukumi karta inay soo banbaxaan loo ogolaado electionkii saxa ahaa la sameeyo waqti baa u dhamaaday aad baa u mahadsan tahay haye magacaaga marka hore magacaygu waa Ducaale haye Ducaale anigoo ku hadlaaya magaca dadweynaha Soomaaliyeed waxaan halkan intaan dhageysanaa waxaan maqlaayay in mar walba la tilmaamayo ragga Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed taasoo shacabka Soomaaliyeed aad moodo maanta in khilaaf uusan ka jirin mar walba aad maqlaysid maaragtay ragga madaxda Soomaaliyeed ayaa la isugu yeeray taasuna waxay ku tusaysaa in ragga Soomaaliyeed uu maanta noqday rag mas'uulkii ka tagay oo gabay madaxtinimadii ay ka filayeen dadka Soomaaliyeed waayo markaa fiirisid shacabku wax xuquuq ay ku leeyihiin ma leh doorashada ragga madaxda ah oo mar walba waxaad arkaysaa in dawlad laga dhiso Soomaaliya lagu soo doorto wadamada dariska ama la yiraahdo international community baa dhistay haba yaraatee in wax concentration aan la siinin ama tixgelina shacabka Soomaaliyeed oo maalinna aan la oran warbal maanta aynu ku dayno shacabkanu inay nin ay doortaan ninkii rabaan ay eriyaan taas daraadeed ayaa keentay maanta in dadka Soomaaliyeed aanay dhageysanaynin maqlaynin haba yaraatee waxa Muqdisho ka socda ama waxa Kampala ka socda aynu xadgudub ku tahay jiritaanka iyo qarannimada iyo security-ga dalka Soomaaliya waayo Kampala wax ka qoseeya ma jiro Soomaaliya iyo Kampala waa two different nations marka Soomaaliya xaq waxay u leedahay destination-ka iyada ay leedahay inay qaadato kaas oo ah inay raadiso security and stability iyo maaragtay in dadku ay dib u heshiyeen taasaana meesha ka maqan maanta waxaad arkaysaa in ragga maanta meesha kala ordaya ay tahay 2 maalmood baad joogaysaa 3 maalmood baad joogaysaa ka faa'iideyso dadkan inta leen karta lay ciidamada hadda fadhiya magaalada Muqdisho imisay dileen oo leeyahay maxaa la madaxweyne Museveni waxaan doonayaa in ciidamada kala baxo ciidamadiis hadday joogaan iyo hadday ka baxaan wax ay soo kordhinayaan nidaam ma jiro hadii la doonayo in dawlad la hagaajiyo aniga waxaan qabaa dawladdan waqtigeedu dhamaanaya dadkuna way daaleen maanta runta in la isu sheego qabyaalada meesha in laga saaro in la doorto nin kasta oo shacabka u daneynaya ka reebaya gaajada ka reebaya silac ka reebaya dad xumada soo celiya sharaftii aan ku nooleen 20 sano ka hor haddaan taa la helin mugdigan baa lagu jiraya aan maanta ku jirno shacabka Soomaaliyeedna maanta ma ogola mana dhici doonto ama mahiiga ha wado ama qof kale ha wado maanta waxa way enough is enough waqti waxa la joogay dadku dhaheen gacmahan u taagnay mar dambe ma dhageysanin gaajadeeda kama warqabtaan dhibkeeda kama warqabtaan guriyahaygu doonsanay kama warqabtaan 2 milyan iyo barba magaalada Muqdisho dusheeda maanta jooga 750 baa bishii may dhimatay ninkeeda bal maanta ka hadlaya shacabku way taabatay dhibaatada anigu waxaan qabaa in aad baa u mahadsantahay Ducaale haye Cabdilcasiis waxa uu kamid ahaa isaguna wasiiradii dawladii Cabdiqaasim haye Cabdilcasiis aad baa u mahadsantahay Caawil runtii hawsha maanta Soomaaliya taala way wanaagsanaan leed in shacabka ay gacantooda gasho si ay danahooda gaarka ah ay maanta uga fikiraan laakiin taa mid ka duwan ayaa waxay ka jirtaa inta badan wadamada dibadda ka ah Soomaaliya waxaan markaa aniga tala iga ah si ummadda Soomaaliyeed ee gudaha ku jirta ee maanta kacdoonka u kacay raadinaya in ay maanta xornimadooda sharaftoodii qarannimadooda dib u soo ceshtaan in marka hore ay la gartaan dadkeenan dibadda jooga oo aan iska dayno maalin walba in aanu soo dhaweyno maamul goboleed cusub madaxweyne cusub aan ayaga sii kala qoqobno haddii maanta la yiraahdo midnimo Soomaaliyeed ha laga hadlo inaan u hadlo sidii midnimo Soomaaliyeed berina markuu ii yeerto nin kale oo maaragtay doonaya inuu madax noqdo aan haddana u tago aan asna haddaan leeyahay
adaa jira nin kale ma jiro runtii arrintaasi ma ahan arrin isqabanaysa oo la waafajin karo gudaha iyo dibadda marka arrinkaas ayaan jeclahay in aada loogu aad baa umahadsan tahay haye su-aal haddii aad qabto marka ugu horeysa waxaan salaamayaa bulshooyinta Soomaaliyeed marka labaad Universal TV aan u mahad celinaya horta ilaaha mahad iskale ilaahay tawfiiq hana waafajiyo runtii annaga Soomaalida nahay runtii isku ma sheegno wax badan baan qarqarinaa wax badan baan isku qarqarinaa qofkii waxaad arkaysaa wax isaga calooshiisa aysan jirinba afkiisana aad ka maqlayso haddana ficiladii uu sameeyay haddana yani aysan iswaafaqsanaynba annagu waxaan nahay kulligeena yani waxaan nahay dad dambiiliyaal ah shacabka Soomaaliyeed oo wada dambiilis aan ku safay karo saddexan u qaybinaya yani shacabka Soomaaliyeed kulligeena midna waa gacan ku dhiigle midna waa af ku dhiigle midna waa hanti ku dhiigle mid yani ina adeerkay iyo reer hebel iyo af ku dhiigla ah iyo mid isaguna lacagtii ku bixinaya fikradda ah shacabka Soomaaliyeed baa kacayo fadhiga ka kacayna taa anigu mid ka duwanaan qaba haye anigu waxaan leeyahay shacab Soomaaliyeed waqti uu kacayo wali la isma gaarin shacab Soomaaliyeed Soomaaliya intaasoo gobollo waayo meel haba yaraatay maanta laga istaagay oo laga wada kacay ma laha waxaan soo gaaraysa amba aan arkayna meelaha qaar inay mudaharaadyo yar ee ka dhacayaan waliba mudaharaadadaas ay u badan yihiin hooyooyinka annagana dhalay iyo ciyaalkeena oo la raba haddana in lagu sii halaago maxaa yeelay haddii ay dhab naga tahay waxa annagu aan rabno inaan samayno wax haba yaraatay caaqiliintii odayaashii dhalinyaradii wax muuqda mudaharaadkaasi yani ka dhex muuqda ma jirto marka waxaan leeyahay aan been isku sheegin Soomaaliyeed dib aan isku qabanno welina waxaan qabaa aniga sheekadu la isma gaarin maxaa yeelay inta aan shakhsi nacaab iyo shakhsi jecelays oo aan annaga noogu jiro weli faanolo faraka ma qodno waaye aad u mahadsan marka ilaahay aan soo laabanaan qabaan aad baa u mahadsan tahay dadka ka qayb galaya waxa kamid ah ya Cabdishire aragtidaada ku saabsan banaanbaxyada iyo doodaha kala duwan ee ka soo baxaya madaxda ugu sareysa dalka awlan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan malinayaa intii aan dhihi jiray baan ku walaalayaa shirki Kampala dad badan baa ka hadlay oday cali Jarman oo adeerkii halkan jooga oo yiraahda hadal la wadayna waxa weeye marka dhibaatada Soomaaliya haysta waxa weeye waxa la iska bartay walaahow ninkii meel hadba soo fariista inuu macnaha ku celceliyo afaray macnaha 30 sano iyo 20 sano macnaha la dhageysanayo uma baahnina hadda in naloo aqriyo Soomaaliya goormay xorriyad qaadatay Soomaaliya goorma macnaha inqilaabka ka dhacay Soomaaliya goorma Itoobiya ku duushay uma baahna waxaan u baahanahay dhibkan hadda jira macnaha maxaa sababa xal ma loo heli karaa taa waxaan ka codsanayaa dadka dad wanaag ama barnaamijyada kala imaanaya ama xamar ka hadlay ama Soomaaliya ka hadlay inay taabtaan dhibka jira markaan ku soo laabtay arrinta Kampala wax badan baan ka hadlay arrinta Kampala waxa weeye arrin xal u ah ummadda Soomaaliyeed macnaha ma aha waxay ku kordhisay kala fogaansho aad u fog maamulkii macnaha Soomaaliya oo aad macnaha ka waraysan hadin shoogna ahayd in madaxweynihii Prime Ministerkii Fariya Farati ahaa in maaldood markaan halkaan aan labadaba ka eegay in runtii waxaan qaadan waayay noqotay nimba intuu soo istaagay TV-ga sidoo u hadli karo u hadlay madaxweynihii aad maqlayseen macnaha wuxuu ku hadlay Prime Minister aad maqlayseen marka arrin laga naxaway marka waxa halka ka soo baxay oo isleeyahay faa'iidadu waxa weeye waa kacdoonka waxaan u arkaa ummadii Soomaaliyeed marka ay fahamtay dibka arrinta Kampala ka soo baxday waxay faa'iido u tahay ummadan qaba maxaa yeelay ummadii baa waxay ku baraarugtay xaqii macnaha intaas sano ka maqnay ku baraarugtay kacdoonka marka waxaan qabaa inuu yahay xaq waxaan qabaa kacdoonka macnaha meel walba ka dhacay halkan ka dhacay meel walba adduunka macnaha ka dhacay waxaa sidara in madaxdii u sareysa dalka ay leeyihiin kacdoonku waa kacdoon dad gaar ay sameynayaan taa waa ku didanaan leenahay waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinteeda inay arrinta ayada apology ama ay macnaha naga raali galiyaan baan leeyahay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed macnaha dadkan waa baraarugeen dibna looma celin karaan leeyahay marka waxaan qabaa arrinta kacdoonka ayaan u arkaa inay faa'iido tahay halku muxuu yahay xalku waa la arkaa macnaha dhibaatada meesha ka jirta
arrinta kambala waa fashilantay waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta sare ee dalalka minaha hadda siiba saddexda mas-uul inay bal dib minaha isugu noqdaan wada fadhiistaan yidhaahdaan waa kala adkaan weynay weer dalka kan iyo dadka kan minaha maxaa xal u ah sidaa ayaan isleeyahay aad ugu mahadsan tahay waa talo fiican waxaan siinayaa ninkaan odaga oo kale haye magacaaga marka hore aniga waa injineer maxmuud haye injineer aragtidaada adoo soo koobaya maxmuud xuseen caliyow oo ah gudoomiyaha jaaliyadda digili mirfle laakiin hadda uma mathalo jaaliyadda waxaan ahay shakhsi caadi ka soo qayb galay haye aragtidayda arrimaha siyaasadeed waayahan ba dhacay wajiyada siyaasadeed loo adeegsanayo qaabka maadaama dowladda kumeel gaar mar walba annagaan isticmaalnay waayahan dambe oo dhanba kumeel gaar ah dhacdooyinkan kambala dhacay waxay muujiyeen dowladda kaliya wejiga ay leedahay inay tahay kumeel gaar laakiin soomaalinimadu inaysan ahayn kumeel gaar ayaa noo wada caddaatay waayo maanta waddankii annagaa leh dalkii annagaa leh soomaali waxay garatay waxa la yidhaahdo milkinimo dhulkii inay iyaga leedahay inayna xaq ku leeyihiin taas waxay noo muujisay horta bisayl maanta kusoo kordhay beesha iyo ummadda dadka soomaaliyeed inayna aada uga fogaadeen cudurkii waayahan dambaba ummadda madaxa isu gelsho ahaa qabiil iyo wax la mid ah hadda iyo danbay taagan tahay arrintu sida walaalkayga shir waxoogaa uu ka taabtay oo ah in madaxday isu tagaan ma xuma inay ka wada hadlaan waayo qofka siyaasiga wuu qaldami karaa maanta qofka siyaasiga wuu qaldami karaa qaladkana waxaa u keeni kara duruufo oo lagu qasbayo oo qofka cadowgiisa ah maalin walba usoo doona ama usoo magacaabo ra-iisul wasaaraha oo qaladku meesha ka timaado maanta hadda waa noo tilmaansan tahay annaga qaladka meeshuu ka imaanayo waa aragnay handadaada iyo hanjabaada meesha ka socoto waa aragnay marka maanta iyagana way gareysteen oo shacabkii soomaaliyeed inuu yahay shacabkii xaqa u lahaa inuu go-aanka inuu gaaro marka waxaan qabi lahaa annaga haddaynu shacabka soomaaliyeed nahay qofka walaalkaaga qaldamo qoorta lagama gooyo waxaan qabaa iyagana way garteen way dareemeen dhibaatada ka imaan karta annaga hadda mudul baa noo dhisan sar nooma dhisna hal dhowra leedahay marka mudulka hadda dhisan aan ku meel gaarnay wax fiican aan ka soo aad baa u mahadsan tahay magacaaga marka hore ninkaa odaga haye magacaaga marka hore magacayga waxaa la yidhahaa cabdullaahi xasan faarax haye cabdullaahi runtii waxaad moodaa hadallihii go-aankii lagu gaaray kampala inuu ahaa go-aan runtii soomaaliya oo dhan aanu cuntamin si kastaba ha noqotay arrinta ama ha lagu qasbo ama ha ogolaadaano laakiin waxay ku habbooneed haddii xataa go-aankaasu kale la gaarayo in prime ministerka marka horeba laga qaybgeliyo oo saddexdoodii wax ka isla saxiixaan ila meesha ma jiro muxuu ahaa hab lagu kala sarreeyo haddii madaxweynaha uu saxiixo inuu dowladda mas-uul ka yahay iyo soomaaliya oo dhan ama kuduu saxiixo midka baarlamaanka inuu soomaaliya waa saddex nin oo isgarab socota ood leedahay saddexdoo liberkooda waa isla egyihiin marka waxay ku habbooneed marka horeba inay asigana ta geeyaan ay ka saxiixaan taa ma dhicin arrinta markii go-aanka la gaaray oo markaasaa loo yeeray prime ministerka runtii si meel ka dhacbay ahayd wixii iyagu waa dhamaysteen midda kale labadan nin muxuu ahaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka xaq uma laha inta fadhiistaan inay go-aan u gaaraan soomaaliya iyadoon la tixgelin dowladdii ama baarlamaankii hadday sharciga ku taagan yihiin oo u dhisnaa xataa sharciga jajabka oo shucayska ah oo hadda dowladdii ku dhaqanto xataa kaama ay tixgelin midda kale arrimihii laisla gaaray go-aanka meesha waa wada aamusnaayeen xataa prime minister lookiisu dembigu waa leeyahay markuu soo noqday xataa waxaa press conference inuu bixiyo oo yidhaha habku saasoo u dhacay anigana raalli kama ihi soomaaliyay ogaada ama uu markaa yimaado anigu waa iscasila oo ka baxo yidhaha taana ma dhicin marka waxaad moodaa kulligood inay hadda la jiifiyaana bannaan isgarab taagan yihiin marka waxay ila tahay horta xalku hadda wuxuu u baahan yahay dhibaatada meeshay ka askumaysa kulligiin waa ogtihiin mana rabta inaad taabataan waa 550 baarlamaanka ah waa madaxweynaha waa muxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka prime ministerka dhexdu ku jira asiga wax problema mabale waa la door saari kara waa la sameyn kara laakiin Soomaaliya way ogaataa intii 500 ay meesha u fadhido oo saddex group ama laba group kala yihiin madaxweynuhu dhinac mar u jeesanayo muxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka oo dhinac group kala wato taa Soomaaliya xaq u meelayso mid u dambayso waxa weeye haddii kacdoonka uu bilowday dadkeena dibadda sheegay dadka kacdoonka ma wadi karaan continue ma sameey karayaan
duruufo meesha ka jira daraaddeed waa ogtihiin kulligiin ama ha la xiro ama ha la handado laakiin dadkayna bannaanka ah in la sameeyo guddi kacdoonkaas sii tixgeliyo sii wada aad ba u mahadsan tahay dabcan kacdoonkaas magaalada muqdisho ka bilowday aragtiyo kala duwan amaba khilaafaad xoog badan ayaa dadka hareeyey waxaan ku horeynayaa marka hore qof siyaasi ah oo isagu markii ugu horeysay kacdoonkaasi isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi waxaad arkaysaa in hanti la gubay oo shalay nin taajir ah oo maanta faaliya waxaad arkaysaan in maaragtay dhibaato badan la geystay waxaad arkayseen in sawirka madaxweynaha la gubay sawirka ra-iisul wasaarahana lagu tujiyey baabuurta oo la yidhi jidadka lama mari karo haddaan sawirka ra-iisul wasaaraha aan baabuurka iskugu dhegan arrintaasi runtii markii loo noqdo waxay u egta arrin afgembiya runtii waxaa wax laga naxa ah in maanta dadkii inta yareeda hartay oo ka harta xabadda shabaabka inta dhaqaalo la siiyo loo adeegsado maaragtay in kursiga u ilaashado ahaantii waxaan hadda maqlayaa fbns iyo qolooyin kale ayaa hadda abaabul wada fbns ardo loo soo dhiibtay waayo waxay hayaan oo dadkii u keensaday dadka ilmaha u keensadan waxaan ku baraarujinaynaa maanta maalin banaanbax kaasi waxa uu ahaa indha cadde oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada muqdisho jooga dhanka kale sidaas oo kale waxaa kacdoonka nisbeeyey oo sheegay kacdoonkani waxa uu yahay gudoomiyaha kacdoonka magaalada muqdisho abko oo isna arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ahay gudoomiyaha guddiga kacdoonka shacabka ee 9kii juun magaciiguna waa cabdulqaadir ibraahim gacal afkow alayidhaah sidaa darteed waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed halkaan kala socodsiiyo in maanta la xiray baabuurkii u shaqaynayay shacabka oo ka qaybgalaya kacdoonka iyo intisaarneed oo ilaa 10 qof ah sidaa darteed waxaa xiraa layidhi bsta oo dowladda ay leedahay sidaa daraaddeed waxaan dadka ogeysiinaynaa in aynan ahayn wax ku fiican in nin mudaaharaad silmi ah ama nabad ah samaynayo loo xiro ra'yigiisa asoo la baxayo oo dadweynaha gaarsiinayo taasi kuma fiicno waxaanan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaa badan loo soo daayo dhallinyaradaas iyo baabuurkaas banaanbuxu ma aha mid in wax lagu xumeeya la rabo ma aha mid in lacag lagu urursado la rabo cid lacagna siisay hadduu siyaasi yahay hadduu madax kale yahay hadduu wax kale yahay cid lacag bixisay ma jirto lacagtan waxaa bixiyo contribution dadka soomaaliyeed oo ah muxsiniinta oo ka mida ururada bulshada iyo inta xamar degan oo ah dad caadi ah ma aha meel lacag lagu urursho lacagna ma rabno mana kaas waxa uu ahaa abkow oo ah gudoomiyaha kacdoonka ka dhacay 9kii juun magaalada muqdisho oo dadkii banaanbaxayay ayuu codkooda ku hadlayay sidaan ognahay oo uu sheegayo abkow dad banaanbax dhigayay ayaa xabsiga loo taxaabay waxaan la soconnaa ilaa 5 wariye in sidaas oo kale iyaguna xabsiga la dhigay oo banaanbaxyada duubayay waxaa la xiray dad iyaguna banaanbaxyada kaalin ka geysanayo abaabulay sida hadda abkow sheegayo marka fiiriso sharciga ama dastuurka wadanka u degsan waxa uu qabaa in madax banaanida fikirka soo bandhigidooda qofku uu xaq u leeyahay sida muuqatana ciidamada nabad sugidda dadkii banaanbaxyada dhigaya aragtidooda soo bandhigayay ayay xabsiga dhigayaan waxaa muuqanaysa in ay durba bilaabatay in la caburiyo fikradihii kala duwanaa ee dadka Soomaalida ah wariyaashii xataa madaxa banaanaa in la xirayo marka fiiriso xagga siyaasadda Soomaaliya soo lama dhigi karayo aragtidani waa aragti cusub oo soo korortay 22 sanadood kadib haye Axmed marka ugu horeysa waxaan aaminsanahay kelimada kacdoon
in si aan laysula fahminba ani ma qabo horta kacdoon inuu ka dhici karo meel 1 kilometer square oo hoobiye iyo isqarxis dhinacyada lagala taagan yahay markuu ugu horeysa ileen kacdoon wuxuu ka dhacaa ummad nabada oo siyaasad caburis lagu hayay ka kacda laakiin hadiiba dhinacii kale wadada hadaad dhaafto xabadi ku taalo ani ma aqaan kacdoon waxaan ugu tilmaamo hadday wax dareemeen dadka ay shucuurtooda muujiyeen waa wax sax ah anigu ma aaminsani in lacag iyo waxaasi ay tahay laakiin mar raabin kara inay dhici kartaa ma hubo midda kale in hadda aanu ka doodno ma ahan wasiirkii allah u naxariistay dhintay arrimaha gudaha ayaan waxaan maqlaayay isbuucyo ka hor baashi inay saa usoo wareegaysa lama ogeyn inuu lahaa wax banaanbax aan fasax aan lahayn lama samayn karo aniga ma oga hadda wariyaasha ma banaanbaxay ku jireen ma wax kale ahaayeen ma garan karo laakiin banaanbaxa hadday duubayeen waa sharci darro wariye gudbinaya fikirkiisa in ani hadda ma hubo nimanka hadda wax abaabulay in ay fasax u qaateen hadday dawladda meesha ka jirto oo wixii ay soo saartay in la raacay tahay waxaa habboonaan lahayd inay fasax raadsadaan marka aniga inay fasax qaateen in kale ma hubo aad baa u mahadsantahay haye axmed بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye arinta meesha ka dhacaysa waa arin ajaa'ib badan markii dhinac laga eego waxaad arkaysaa in ay xaaladdu eg tahay dad meel yar go'doon iskula ah haddana magacyo kala sheeganaya haddana is haysta oo aan qiimeynaynin inay meel yar oo go'doon iskula yihiin iyo duruufta ka ballaaran oo jirta waxaad kaloo ka dhex muuqanaysaa hankii loo qabay ummadnimo sifadeedii iyo hankee muuqaalkeedii midna inaanu soo kobcayn oo sii baaba'ayo arrintu iyadoo sidaa u nugul haddana waxaa ku soo xirmay dadweynuhu maxay ka kaceen haddii dadweynuhu ay ka dhex muuqato inay ka kaceen siyaasad humbulan oo shakhsiyadaysan inay arkaan oo aan wax ummadnimo iyo qarannimo midna tarayna magacooda lama sabidanayo ay tahay hadday ka kaceen xaq bay u leeyihiin intaa yaroo hadda meeshooda joogta inay ku caddaystaan ra'yigooda laannu cid kaloo mas-uuliyaddii sheeganaysa male dhinaca kale ee axmed tilmaamayo ragga dagaalka ka wadaa mas-uuliyad qaran iyo shacabka codkooda ku hadlidood iyo sheegan maayaan waa niman dagaalkooda u miiqan yahay cidnana kala tashan maayaan nimankani haddii xaaladda ay ku shaqaynayeen ay tahay magacii mathilaadii caalamkana loo sheegaya ay yihiin madaxdii ummadda iyo dawlad sheegashadeed ay tahay dawlad dadku waxay u joogaan inay la xisaabtamaan maanta wixii ka dambeeyana dadku hadday ka soo kobceen oo u bislaadeen inay la xisaabtamaan cidda u dawlaynaysa xaqay u leeyihiin inay sidaa yeelaan dib duuba laabtaana male waxaana malaynayaa kacdoonka intaa yar meesha ku jirtahay ay hormuudka ka noqdeen haddaanu cabir dhab ah iyo bisayl dhab ah salka ku hayn ma keeni karo inuu debadaha kuwa jooga oo dhani ayana wada kacaan xeryaha qaxootiga kuwa jooga ayana wada kacaan xaalad sideeda u bislaatay oo dadku marxaladda inay ka gudbaan ay rabi lahaayeen ayay ku soo aaday arrintu qolada ragga dawladda madaxda ka ahna waa inay sidaa u fahmaan baa roon oo ay dadka la falgaleen oo weydiiyaan kacdoonka aasaaskiisa waxa weeye isbedel baan u baahanahay ka duwan waxaad ku shaqaynaysaan oo dhan saa way macnihiisu aad baa u mahadsantahay axmed dad badan ayaa xagga emailka barnaamijkan uu leeyahay noo soo diray waxaanu fursad siinaynaa ilaa 3 qofood oo emaila inoo soo diray bal aan aragtidooda iyaguna aanu wada dhageysano waa salaamaya dhammaan ka qaybgalayaasha doodwadaag salaan kadib in ka badan 20 sano ayaa Soomaaliya dawlad la'aan ay ahayd mana la helin xal waara Shariif Xasan Sheekh Aadan waa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ka wakiil yahay shacbiga haddii shacbigu ay rabitaankoodii soo bandhigeen oo ay muujiyeen inaanay raalli ka ahayn heshiiskii Kampala suuragal ma tahay inuu u tanaasulo shacbiga Soomaaliyeed si looga gudbo marxaladan adag ee soo wajahday ummadda Soomaaliyeed salaan ra'iisul wasaare Farmaajo marka hore shacbiga lama tashan ama baarlamaanka wuxuu ogolaaday isagoo qatarta u jeeda heshiis haddii uu xal u arkayay markaas Kampala haddana dhibaatada shacbiga xal ha u arko oo ha iscasilo haddii kale waxaa dhici doona in Soomaaliya ay cayl ka daran ku sii dhacdo dadweynahana waxaan leeyahay kacdoonka ha joojinina ilaa nabad la helo Maymuun Yuusuf Maxamed Abu Dubay hal baan oranayaa siyaasiyiinta Soomaalida ee isku haysta
dhibaatada Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf waa iscasilay markuu fashilmay Cali Geedi sidoo kale xaaladda Soomaaliya way muuqataa in Sheekh Shariif uu wax dhaqaajin waayay si masiirka ummadda Soomaaliyeed loo badbaadiyo waxa habboonaan lahayd inuu iscasilo si Soomaalidu aayaheeda ay uga tashtaan saddexda qofood waxay ahaayeen saddex qofood oo xagga emailka noogu soo diray barnaamijkayga oo gabagaba noo jooga waxa jeclaan lahaa bal in aanu marka hore aanu raadino xaaladii waa sawirnay waa noo muuqataa in xaaladda waddanka Soomaaliya ay dhibaato jirto siyaasiyiintii waddanka u talinaysana ay run ahaantii ku guuleysan waayeen sida hadda Axmed aad sheegaysa 6 bilood in lagu mashquulsanaa oo laga sugayay in ay iyagu heshiyaan inagoo fiirinayno qiimeynayna bal xaaladda taagan maxaa xal u aragtaa horta xalka intaanan ku hormarin waxaan jeclaan lahaa inaan aragti waxa imaan kara haddii maanta sida maanta ay taagan tahay arrintu ee lagu gaaro iyadoo sidaa la isu haysto August maxaa imaan kara ma ka fikirteen oo ma isweydiiseen xaggee loo gudbi doonaa haddii uu caroodo Museveni iyo ninkii Burundi haystay ay yiraahdaan ciidamadeena subaxan la tageynaa ma ku fikirteen waxa dhici kara mise ma la qiyaasi karaa see wax noqon karaan horta taas aniga waxay ila tahay priority-ga ugu horeysa oo in xal loo raadiyo nimankan ay tahay waayo barbar waxa ii muuqata haddii ciidamadan ay baxaan oo dawladdii ay burburto ma hogaamiye kooxeedyadii iyo dagaaladii iyo wixii ma loo noqon doonaa mise ragga xoog badan oo dhinaca kale ka soo jeeda subax qabsan doona kulligood oo haddii qabsadaan maxaa dhici doona Soomaali badan waxay yiraahdaan hal loo daayay ha qabsadaane nimankii adduunka u sareeyay oo ku magacaabay inay argagixisan yihiin soo intay badaha soo dhigtaan kuruusyadoodii dhulkood ummadda iyadoon u kala soocin soo dhulka lama dhigayo dhulkooda lama gubaayo oo sida maanta haysata Afghanistan iyo Iraq soo kuma dambeeyeen 50 sano burbur iyo halaaga marka waxaan jeclaan lahaa qof kasta oo Soomaali ah inuu taa intuu ka daqado waxa imaan doona oo hadda aan arkayno oo noo muuqata haddaan xal la helin waxa imaan karo horta inaan taa xalkeeda raadino aad baa mahadsantahay Axmed haye Axmed xagga xalka waxa weeye horta xal markaan doonayno ninkii tuur leeyahay adduunka yara iqaad hadii kale xal arki maysid waan xujoobaynaa oo meel wax xurrinaga garan mayno waxaan rabnaa cid walba maqaamkeeda in loo ogolaado arrintani shacabkii gudaha joogay waxa jiro way dhaliileen wayna ka soo banaan baxeen Soomaalidu waxay ku maamaadaa xil dhalaan gartay weyna haddii dadkii hoose markaan kaamarada fiiriyay dad shacab hoose oo masaakiin iyo dumar u badan iyo caruur baa u socda mudaharaadku markuu noocaan oo kale u yahay waa bilowdaa markuu bilowdo dibadeedna waa higsi buu yeeshaa iyo ahdaaftii mudaharaadku lahaa dib bay ka soo baxdaa xataa aniga waxaan qabaa doorkii intellectualka Soomaalida iyo doorkii oday dhaqameedka Soomaaliyeed ee dheergaradka lagu tiri lahaa iyo doorkii wadaadadu waa maqayn doorkii wadaadadu wuxuu ku haftoomay dagaalkaas sectoralka iyagu isu baxeen isaga hadda bariyahan sugumayna xagga dhig doorkii oday dhaqameedka Soomaaliyeed waxa la rabaa qaranku inuu sii baaba'ayo duulaankeeda inay galaan isu soo baxaan waxa kale muhiim ah intellectualka waliba diaspora jooga inay ka gudbaan isfiirsiga ay fiirsanayaan xaaladda iyo dareenka la eg in background-ka arinta la fiiriyo oo leeyahay hadii cid dhaqaaqdo waxa la oranayaa waa reer hebel wax dhaqaaqay ama qofkaani xagee u socdaa iyo madaxnimo raadinaya marxaladda koobaad oo ah walwalka ah dadka la baray in madaxnimada laga boqo ama madaxnimada qofka u xaglinayo la ku weeshin gareeyo qaab loo gudbo waa in la helaa qaabkaasina wuxuu noqon karaa intellectualka iyagoo abuura baan dhaqaaqaya baan isku xiran oo dhaqaaqaya oo hadafkoodu yahay in dalkana la caymiyo kuweeshinka leadership-kana xalkiisa dib loo dhigo committee aan noqonaya baanka wada socda haddii muuqaalka bulshada laga ilaalinayo hebel baa horboodaya waa reer hebel way dhacaysaa dadka inaanay qaarkood bislayn qofkii wanaagsanaa leadership-ka weligii soo bixi maayo haddii aan la helin qaab loo dhaqaaqo marka common leadership oo grouping ah oo isu tagay oo dareenkoodu yahay inay aragti la yimaadaan qaradka lagu badbaadinayo wada socdo waa in la helaa kuwaasi ay markaa noqdaan wax support gareeya kuwa support gareeya gudaha waxa ka dhacaya
miisaan noqda madaxdu ay fiiriso ka baqdo waxa la yiraahdo group interest noqdo markaa aad baa u mahadsantahay Axmed gabdhaha dambe aanu fursad siinayna barnaamijkan waanu gabagabayn doonaa hadii ilaahay ma gabdhaha dambe aanu fursad siinayna gabadha dambe aanu fursad siinayna si ay iyaduna aragtideeda ay u dhiibato dabcan barnaamijku waa balaaran yahay laakiin waqtiga ayaa laga yaabaa inuu nugu yar yahay haye magacaaga marka hore haye haye intaa ka bacdi waxay fikirkeedu waxaa waaye dalka horta Soomaaliya iskale Soomaali wixii ka soo haraan waxba kuma laha waxaa loo baahan yahay qofkii wadanka wax u qabanayo haye qofkii wadanka wax u qabanayo oo mas'uuliyadiisa qaadi karo oo daacad Ilaahay ugu shaqeynayo in loo ogolaado waxa uu sameeynayo oo fikirkiisa loo dhaafo qofkan Soomaali wuxuu tiraynin Soomaali Uganda laga xukumo no Kenya laga xukumo anigoon Soomaali ka korayo xukumi karaa ma jiro marka u baato waa UN-ka iyo waxa ka dabalu lifta UN-ka has ka goosto wixiisa muxuu ahaa content group ka iska goostaan waxooda Soomaali hadda isku tashano anagoo Soomaali hadda isku tashano aniguna u baahanahay ma jirto daacadnimo wax kasta ka taqaana anagoo naaga waxa isku dayeynaa inaan ciidanka aan muxuu ahaa mushaarkiisa meel saarno everyone oo Soomaali hoos wadan Yurub joogo wuxuu ka faal qaadi karaa hal askari mushaarkiisa nimanku ma gartaan waxa meesha ku baabay waa naaga iyo ilmo doodan waxa isku hasta waa nimanku ma tanaasulayaan doo aqlina ma lahan hooyadood iyo walaashood iyo naagtood iyo ilmahood iyo gabadhood ku dhimanayso waa inay damiir yeeshaan maalin kasta anaga meeshan nin cad iyo nin madow aan ugu caynay gabdhahan iyo man madow yahay waxba ka saan qaato aad ba u mahadsan tahay waqtiga ayaa ina haya waa ka xumaha inta wixii ka soo هل اسكو تناسلو ninka dalka wuxuu qabanayna loo ogolaado alla aad ba u mahadsantahay waqtiga lagu yar gabadha dabahaye su'aasha aad qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Sahro waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto adduunka dacaladiisa iyo intaan hadda aan meesha wada fadhino markaan aragtideedu ku cabiro barnaamijka ka socda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho aad ayay noo damqisay sida gabadha walaashay ay sheegtay ee warsan waxa weeye dadku inta wada fadhiyo qof waliba wuxuu hadlaa fikirkiisa annagu hadaan hooyooyinka Soomaaliyeed nahay annagu matalayna kuwa wadanka gudihiisa jooga iyo kuwa maxaan ku dhahdaa qurbaha jooga intaba waanu ku dhib qabnaa meelahan waxaan soo dhaweynaynaa kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ama ilmaha ha aadaan ama maxaan ku dhahdaa haween kaliya ha ahaadaan ay ka muujiyeen dareenkooda iyo rabitaankooda waxa ay rabaan waxaan baarlamaanka u sheegaynaa Soomaaliyeed mas'uuliyadda iyaga ku xiran tahay 550 baarlamaanka ah waa inay wixii mowqifkooda iyo danaha Soomaaliya ay fiiriyaan waxay MP u yihiin oo ay baarlamaan u yihiin shacabka Soomaaliyeed oo ayna matalaan mid baan dhihi lahaa maxaan ku dhahaa prime ministerka aad baan ugu faraxsanahay 6 bilood waxa uu qabtay iyo hadafka uu ka geystay iyo go'aankii uu ka qaatay meeshii afduubka ahayd ee la dhahay maxaan ku dhahdaa Kampala markii uu soo noqdayna aad baan ugu faraxsanahay markuu dareenkiisu siiyay qiimaha iyo rabitaanka iyo farxadda ay shacabka Soomaaliyeed u muujinayaan Sahar aad ba u mahadsan tahay waqtiga ayaa inagu yar barnaamij waa ka xunahay in aan dhamaantiin idin wada siin karin sida daraadeed waqtiga oo nagu xun xilligii warka aanu ku soo dhow yahay intaas ayaanu ku soo gabagabeynaa barnaamijkayagii dood wadaag oo aan caawa ku eegeynay xaaladda siyaasadeed ee wadanka Soomaaliya waxaan u mahad celinayaa Axmed Sheekh Mukhtaar iyo Axmed Salaad Kulmiye iyo dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka nagala qaybgalay tan intaanu dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamid ah dhamaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadino